madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa haysato cuquubadii uu ka galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Madoobe isagana waxa haysato cuquubadii iyo dambiga uu ka galay Allah u naxariistay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya labadooduba dhacdooyinka ay dul taagan yihiin oo ay raggii hore ku mucaaradi jireen ama ay ku eedeyn jireen ayaan ku sharaxayaa haddii aad nagu codsataan nagu soo bir muuqaalkana si shirgaray aragtidaadana ka dhiibo labadan dhacdo ama labadan nin iyo labadii kale ee hore waxa ay ku eedeyn jireen oo ay maanta dhex joogaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeyn jiray wax kasto oo dhibaatooyin ah oo dalkan ka jiray in dawladdiisu ku fashilantay isaga ayaa si gaar ah loogu eedeyn jiray isla qodobadiina mid kasta waa uu dul tagay madaxweyne xasan isaga ayaana maanta ku eedan laba qodob ayaa u dhiman waana muddo kororsi loo sameeyo intuu sharciyada ka dhamaado iyo inuu dagaal ka dhaco magaaladan ama uu siyaasiyiin weeraro maamul goboleedyada Puntland ay Jubbaland oo maqan ku eedeyn jiray shirarkii Muqdisho oo qabsoomi waayo ku eedeyn jiray oo golihii wada tashiga qaran waxa uu gadigayay in ay baasha xalana dhaafin oo aanay kambaala tagin caqabadahaas oo dhan iyo kuwa kaleba isaga ayaa mid u xisaabiyay waana dul maray ama arag laba qodob oo dhiman sidaan hore u sheegnay waana in muddadii sharciga inta ka dhamaato 2 sano loogu daro iyo in dagaal ay ka dhacaan magaalada ilaahayna ma keeno ninkan aad u jeedin Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe isagana qodobadii uu ku eedeynayay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Allah u naxariistay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa isagana haysto hadda koor shir jireed ayuu qabtay codkan waa ku deyn doona oo uu ku leeyahay Professor Jawaari xaq uma lahan inuu shir gudoomiyo golaha shacabka maadaama mooshin isaga ka dhan ah ee xildhibaano qoreen wuxuu kale uu ku baaqay in la ilaaliyo sharciga mooshinka xildhibaanada ay soo gudbiyeen la qabto gudoomiye Jawaari laga gudbiyana oo banaanka ka istaago kadibna qaladaadka lagu eedeeyay ay baarlamaanku ka fariistaan iyadoo ay shir gudoominayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha iyo kan labaad hadda gudoomiye ku-xigeenka koowaad waa Baxsan Sacdiyo gudoomiyihii labaad ee golaha shacabkana magaalada uu joogaa isagiina qunful ayuu ku xirtay xaruntii golaha shacabka wax shaqo ah socdo malaha isla qodobada wuxuu ku eedeynayay Professor Jawaari Allah u naxariistay banana daabo hadalkii hore ee Sheekh Aadan Madoobe 107 xildhibaan ayaa soo saxiixay mooshin ka keenay gudoomiye Jawaari waxay u gudbiyeen qofkii mudnaa oo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahaa qodobkaas wuxuu tilmaamayaa haddii mar mooshin sharci laga keeno gudoomiyaha markaas kadib ilaa cod looga qaado uu ka guuleysto hawshii baarlamaanka asiga hogaamin karo sharciga ka joojinaya ilaa waxa lagu yahay waa sharciga markii hore sharcigu ku fadhiyay nidaamkaas hadduu soo baxo oo arintaas la keeno asiga xaq uma laha markaas kadib inuu maartay gudoomiyo taas macnaheedu yahay qof haddii la eedeeyo asiga garta ma gudoomin karo qof la soo dacweeyay oo la soo eedeeyay oo hadan asiga xukunkii ku dhawaaqayo maalin heblaaya loo fariisanayaa hebla gardaran saasa yeelaya ma dhihi karo qof haddii mar soo eedeeyo wuxuu sugayaa dad qofka waajibkaas iska le waajib gudoomintiis asiga laga sugayaa saacadii la keenay mooshinka wixii ka dambeeyay hogaaminta baarlamaanka waxa xaq u leh gudoomiye ku-xigeenka koowaad asiga hogaamintaas iska leh waxaana siiyay heer hoosaadka baarlamaanka iyo shuruucda noo yaalo ayaa siiyay taas haddii lagu qanci waayo waxay noqonaysaa arrin lagu waa dhawaad waa aragtaan siyaasiyiinta Soomaalidu markasta oo ay xukunka banaanka ka joogaan qofka xukunka ama maamulka markaas ku jira ayay waxay si indha la'aan ugu eedeeyaan culays kasta oo siyaasadeed iyo amni oo wadanka ka dhaca xaq loogu leeyahay qofka isaga u soo shaati qaatay laakiin kuma cabiraan culayskaas waxa ay dalka iyo waxa ay dawladda iyo dalka Soomaaliyeed ka qaban karaan dabadeedna dadka Soomaaliyeed sidii ugu sheegayaan wax aan loo joogin oo ay sawiro iyo wax kale ugu sawirayaan ayagii markay meesha tagaan isla qodobadii ay shal markay banaanka u joogeen qaladka u arkayeen oo ay dhahayeen wariyaan dastuurka lagu tuman shuruucda lagu tuman Soomaaliya la kala geen ayaa iyagii ku dhaqmayaan waxa halkaas ka muuqato in uusan siyaasiga Soomaaliga ah lahayn damqasho inuusan lahayn go'aan inuusan lahayn sax iyo qalad si u kala maareen lahaa oo ay kaliya aqliyadiisa iyo miirkiisa isugu geeyay iyo xooggiisaba sidii uu kursigaas ku fuuli lahaa dabadeedna oo danihiisa gaarka u qabsan lahaa oo ay ugu horeyso sidii xukunku sii joogi lahaa inuu ka shaqeeyo iyo sidii uu dhaqaale u tabci lahaa bal maxaan ku macnayn karnaa maanta labadan hogaamiye
oo dowladdii Soomaaliyeed madaxda ugu sarreysa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha qaranka waxa ay ku eedeyn jireen raggii hore oo ay maanta mid ayagii u mareen oo mid kasta ama uu soo maray ama hadda xaaladaasi ku jiro qaarna ay u dhiman yihiin wixii shalay la qaldanaa haddii maanta la saxan yihiin oo isku ayagii ku dhaqmayaan maxay tahay waxa aan ka baran karno siyaasiyiinta Soomaalida aad waa mahadsantahay aragtidaada qaybta sayfaalada noo reeb muuqaalkana si shargare haddii aad nagu cusubtaana nagu soo biir